بسم الله كسورة جنالك ولي waxaa ku guda jirnaa koorsadeeni barashada SPSS maanta waxaa qaadan doonaa qaabka loo sameeyo correlation test ama correlation analysis sida ognahay correlation wuxuu ka mid yahay parametric test oo badanaa waxaa la isticmaalaa continuous variable ama scale ahaado ama interval ahaado marka maanta waxaad sameynaa qaabka loo sameeyo correlation analysis marka horeysa waxaad tagaysaa analyze aad tagaysaa kadib waxaad tagi doontaa correlate kadibna waxaad tagi doontaa bifurcate intaas markaa dhahdo variableskaga soo dooranaysaa hadda almost wax scale ah ama continuous ah waxaa noogula jiro saddexdan variable marka id laga reebo id maadaama macna sameynaynin marka intaan aad aadid kadib waxaa aniga rabnaa inaad sameyno person testiga aan isticmaal doonaa marka wuxuuna ka kooban yahay mataqaanaa positive iyo negative relationship oo correlation ah marka negative-ka waxaa waaye minus soo bixi doona halka oo positive-ka ama plus ama oo noqon doona marka soo teeda kale halkan waxaad dooranaysaa test of significance ma one tail rabtaa ama two tail badanaa two tail fiican laakiin waxay ku xiran tahay hadba adiga variableska ku xiran tahay haddii aad og tahay in oo correlation-kan oo labadan variable ka dhexeeyo inuu one direct uu yahay oo kale ama positive ahaado ama negative ahaado kadib one tail dooro laakiin haddaan hubin direction-ka uu xiriirka leeyahay labadan variable waxaa ku talin lahaa inaad two tail iska yeedaaso kadib halkan waxaa ku sii daanaysaa flag significance correlation haddii wax oo mataqaanaa oo xiriir ah oo significant ah oo jiro wuxuu ku sameynaa star ku saara marka intaas ugu muhiimsan hadda option jiro oo ku dar kartaa laakiin hadda anu uma baahan marka intaan aad aad kadib waxaa leeyahay okay marka okay aad waxa ku soo bixi doono table-kan halkan marka waxaa waaye variable-kan wuxuu ka hadlaa dad qofka unemployed-ka ama shaqo la'aanta intuu shaqo la'aan ahay ama cadadku shaqo la'aan ahay iyo halka oo ka hadlaya kan waxaa waaye qoysaska meeqa lacag soo gasho bishii iyo halkana waa da'di waa marka waxaa ka dhexeysa qofka shaqo la'aanta oo inta muddo shaqo la'aan ahay iyo dakhliga soo galo reerkiisa maxaa ka dhexeeyo waxaa ka dhexeeyo waa 0.78 waa almost waxaa waaye waxaa dhihi karnaa waxaa ka dhexeeyo waa week waa dhihi karnaa week positive relationship marka hadduu mar oo keed yahay mataqaanaa adiga 10% ilaa 30% oo udhexeeya macnaha week waaye marka week positive ka dhexeeyo macnaha waa xiriir waxa ka dhexeeyo oo positive laakiin se ma aha mid oo awood leh waxa waa xiriir yar oo saameyn badan lahayn teed kale marka fiirisid significance-ga oo ah two tail-ka marka fiirisid waxa waaye waa unsignificant waaye oo not significant waaye wax xiriir ah kama dhexeeyo macnaheedu marka waxa waaye nalaha bossaska ah mataqaanaa in wax xiriir ah oo ka dhexeyn labada variable macnaha waa reject green waaye macnaha waa we fail to reject the null hypothesis marka wax xiriir ah meesha kama dhexeeyo sidoo kale marka fiirisid inta muddo qofka shaqo la'aanta yahay iyo da'da waxa ka dhexeyso negative week ka dhexeyso week correlation oo ah macnaha negative xiriir negative ka dhexeeyo oo significant ma ahan waxa marka wax xiriir ah oo ka dhexeeyo ma jirto da'da iyo xilliga qofka shaqo la'aanta yahay meesha saddexaad aan fiirin doono waxa waa qofka income-ka hoos soo galo ama qoyska soo galo maxaa ka dhexeeyo iyo mataqaanaa iyo qofka da'diisa waxaa ka dhexeysa positive week ka dhexeeyo waxaa awood ma lahan xiriirkaas laakiin waa positive teeda kalena waa significant maaha wax oo xiriir ah oo sheega bala marka waana null hypothesis-ka waa reject green waa marka saddexdoo fiiriyo wax xiriir ah oo ka dhexeeya ma jiro maxaa yeelay haddii wax xiriir ka dhexan lahay
halkan waxaa star buu noqon lahay waxaana kasoo noqon lahay halkan waxaa kasoo noqon lahay footnote oo cadeynaya in ay xiriir jiraan marka hadda maadaama anaga xogta haysana wax xiriir aysan ka dhexayn marka sidaasaan soo baxday sidaasaan ku fasiri kartaa mataqaanaa correlationka marka badanaa report gradesna waxaa report gareysaa kaliya qaybta maadaama oo diagonal waaye oo diagonalkaas waxa dhinacan ka xiga dhinacan ka xiga waa isku mid haddii aad taqaano qofka matrix ka sameeyo marka labadan macno ma sameynayso marka waxaa sameyn kartaa inaad xoogaa yar update ku sameyso hadaa report garaynayso ama sidoo isticmaali kartaa laakiin haddaa rabtan waxaa sameyn kartaa inaa hal table hal column ka dhigto oo saas u taxdo kadibna aad kusoo qorto waa sameyn kartaa marka casharkeen intaas oo ku ogyahay haddii aad ka faa'iiday please like noo saar asxaabtaan la sheergaree teeda kale waxaa xiga casharkeen xiga noo balana insha allah maasantii macsalaan